بسم الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mahad iska leh, allihina abuuray, na barbaariyey, nagu hanuuniyey islaamnimada, noo kasbay inaan isugu nimaano xafladan quruxda iyo qiimaha badan leh. allahaasaan mahad idilkeedu celinaynaa. mahadda alle kadib waxaan mahad ballaaran u celinaynaa waalidiinta qiimaha badan iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan, iyo dhammaan ardayda dhigata markas alcadaala iyo maamulka alcadaala ugu horeeyo walaalkay sheekh cabdiraxmaan. dhammaantiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaan kadib aadaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladan quruxda iyo qiimaha badan oo lagu maamuusayo dhallaankeena yaryarka ah ee dhigta alcadaala, oo qaar ay khatimeen kitaabka alle subxaanahu wa tacaala, qaarna ay ka gudbeen marxaladii koowaad ee alqiraa'ata walkitaaba iyo qaybta saddexaad ee iskuulka ee bb2da. runtii waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan, waa xaflad qurux badan, waa xafladna farax gelisay, waa xaflad aan rajaynayo in aan ilaahay ugu dhowaanayno, maxaa yeelay waa meel lagu weyneynayo kitaabka alle subxaanahu wa tacaala. intaa kadib ummaddan soomaaliyeed markii ay soo qaxday oo waddankoodii ka soo barakaceen, bifadli illaahi waraxmatihi wuxuu ilaahay ku badbaadiyey oo sabab uga dhigay macallimiinta meel kasta ooy galaanba la daba socday kitaabka alle subxaanahu wa tacaala barashadiisa, oo gaalo markii ay qaxisay yiri qaxoodina ay ujeeddadoodu ahayd in ay diinta ka wada saaraan oo ay kirishhtaameeyaan oo ay kiniisadaha ku garaan. waxaa ilaahay fadligii sabab uga dhigay macallimiinta kitaabka ilaahay la daba socday oo alxamdu lilah hadafkii gaalo ay lahayd beeneeyey oo kitaabka ilaahay u xambaariyey, oo yurub iyo maraykan iyo adduunka daafadiisa meel allaala meel ay tagaanba kitaabka alle subxaanahu wa tacaala la daba socday oo u xambaarinayay kitaabka ilaahay oo u laqinayay kitaabka ilaahay. waxaa kaloo ayagana aad iyo aad aan la soo koobi karin dadaalkooda iyo juhdigooda hooyooyinka soomaaliyeed oo meel kasta ood martid aroor iyo galabba ardada yaryarka iyo awlaadda ilaahay ku irsaaqay gacanta haya oo la daba socdo goobaha waxbarashada, garab taagan macallimiinta. ilaa macallin keliya wax ma soo saareen hadduusan haysanin garab istaag iyo juhdi iyo taageero hadduusan haysanin ka timid waalidiinta labada dhinacba. markii la helay waalidiin isku duuban iyo macallimiin isku duuban iyo arday heegan ah ayuunbaana wax la bartay oo heerkaa la gaari karaa. laakiin haddii waalidka uu taagan yahay oo macallinka uu daciif yahay, goobtaasi waxbarashadeeda waa jiis oo iskuma toosayso. hadduu macallinkii taagan yahay oo waalidkii uusan dan ka lahayna waa dhibaato. goobaha waxbarashada runtii waa goobo barakaysan, wuxuuna ilaahay ku barakeeyey macallimiin heegan ah iyo waalidiin garab taagan. haddaan la heli lahayn aabbo dadaalayo oo fiiskii bixinayo iyo hooyo cunugii gacanta haysa ee ku simaysa madrasadii iyo macallin taagan 24 saac lama gaareen heerkan. ummaddan soomaaliyeedna adduunka meel ay tagtayba khayr iyo barakay la tagtay. ummadda soomaaliyeed waxay la magac baxday ummatul qur'aan. alxamdulilah, ilaahay baana nagu barakeeyey, ilaahay baana nagu sharfay. laakiin
waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga anigu macallin baan ahay muddo badan baan macallin Nairobi ka ahaa ilaa taqriiban 25 sano macallin baan Nairobi ka ahay xaafadda la yiraahdo Soosii baan deganahay runtii waxyaabo cajaa'ib leh oo aragnay baa jiro waxa la yiraahdaa labo ilmahooda wax ma bartaan labo ilmahooda wax ma bartaan meelo badanna waan ka sheegay aabba mooga oo waxba garanaynin aabihi waa moogo biilka iyo fiiska iyo kirada guriga iyo caafimaadka buu ka adag yahay laakiin cunugiisi meel uu wax ku barto madrasa uu tago meel uu ku jiro iskuul uu dhigto inuu kitaab ilaahay bartay inuu san baranin inuu quraanka dhameeyay inuu jus dhameeyay midna ma garanayo aabaha waxa la yiraahdaa mooge aabba mooga waxa ka daran oo ayadana cajaa'ib leh habar masayreeya haday hooyadu masayr badan tahay oo ay odaygii 24 saac ka daba laalaado oo meel wax lagu bartay iyo meel wax lagu cunay mid ayna dan kala hayn oo odaygii CCTV la daba socoto oo mar alla markuu yimaado imtixaan ay la galayso oo mar alla markuu baxay gaari ka daba qaadanayso waa dhibaato hooyadaasi cunugeedii waa qeyrkii buu ka harayaa ayadina way rafaadaysaa wali iyo dhibaato unba u ziyaadayso iyo in ay ilmaheedii qeyrkood ay ka haraan marka waxa la yiraahdaa adduunku waxa ugu daran oday mooga iyo habar masayreeya ilmahooda waxba ma bartaan waatii hadda ciyaalka filinka ay noo soo bandhigayeen runtii aadan oo ugu farxay filinkaasi wuxuu ka turjumayaa in ilmuhu inta badan kurtigood ma aha ay been ka soo rarayaan macallimiinta oo waxaan jirin waalidka loo keenayo oo mar waliba waalidkii wax aan jirin inta loo keeno oo la kicinayo ilmaha yararka ana wayna istaar yaqaanaan meelaha nagala taabta aad bay u yaqaanaan ayagoonan waxbarashadii aadin ayagoonan iskuulkii ama dugsigii gaarin ayaa intay been noo soo raraan yaan anagana budkeena la duulayna hadda ka hor qiso waxa dhacday inta macallin waliba qisadaas waxa u sii daran oo hadda u nugul dhibaatada ayada ah macallimiinta quraanka u nugul macallimiinta iskuulku way dhaamaan oo waxay leeyihiin dawlad waxay leeyihiin wasiiro waxay leeyihiin hay'ado waxay leeyihiin nidaam u taagan laakiin macallinka quraanka iyo madaaristii waalidka iyo macallinka looma dhaxeeyo waxa dhacday ilmo lagu soo garaacay dugsi iskuulkii oo haya u yimid odaygii iyo hooyadii kaasuu yiri waa la soo dilay aad baa la soo karbaashay maamadina xijaabka bay tuuratay odaygina wuxuu soo xirtay dhar fudud dagaal baa la soo aaday waa la soo dhaqaajiyay dugsigii bay moodayaan oo macallinka dugsiga maanta in la qalaa la rabaa dugsigii buu daba mariyay kaasay waraad ka dugsiga waa dhaafisay xageed noo wada kaasuu yiri maya macallinka dugsiga ma waxa soo dilay oo macallinka iskuulka war wax fardan baa tahay macallinka iskuulka dilkiisa waxba lagu bartaay dhibaatada waxaan u haysanay bariyahan oo dhan ku maaganaa kii quraanka meel laga fariisay baa leeyahay marka ilmaha waxyaabaha ay noo soo rarayaan intooda badan xaqiiqada in la ogaado dib loo fiiriyo la isdajiyo hadal xigmadaysan markii macallimiinta ama mid iskuul ha ahaado ama midka quraanka ha ahaade ay ilmuhu wax nooga soo raraan waa in si xigmadaysan oo qiimo badan oo asluub ku jirto aan oo la dhaqano oo xamaasad iyo qiiro aanan loola tagin macallimiinta iyo goobaha waxbarashada ilaahay haydan barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala kadib ma hada allana markaska al-adala oo maanta xafladan qiimaha badan oo runtii quraankii iyo tafsiirkiisii iyo fiqhigii noo soo bandhigayna aad baan ugu mahadinaynaa waan ku faraxsanahay hadalkayga intaasaan ku soo gaabinayaa barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran lak ya ustadna